حاوي وان كلا راقني بريان وان كلا مقنين مال اي حيسي يعني وايدين حيسي هدي اد كعصبتها channelka waxaan wataa hal codsi hadda channelka cusubtahay waxaan ka codsanayaa subscribe like share hadii aad la joogtana aan ku soo dhaweynayaa big welcome soo dhawow channelka familkaaga waay familkiina ahay waa idinkaasa asxaabay maanta waxaan idin wadaa qiso oo markii aad ma aragtay idinku dhageysataan naftigiina idinku soo dhacayso waxaas iyo wax la mid ah baan rabaa qisadan waxaa la yiraahdaa qof aan garanaynin wuxuu yahay baa noloshiisa badbaadiyay baa la yiraahdaa qisadan qof aan garanaynin baa noloshiisa badbaadiyay yaa qisadan khiyaaray qisadan waxay ka dhacday wadanka Ingiriiska magaalada la yiraahdo Birmingham bay ka dhacday qisadan waxay ku dhacday qisadan oo ka soo sheekaysay gabar la yiraahdo Nina waxay ahayd 32 jir ka shaqeysa train stationka magaalada Birmingham meel kamid qeyb kamid train stationka waxaa la dhihi jiray magaciisa train stationka wuxuu ahaa train stationka waxaa la dhihi jiray New Street train stationka la yiraahdo ayuu ahaa gabadhan Nina ayaa ka shaqeynaysa meeshaas oo waxay shaqaalaha ka shaqeeya qaybta treenada Nina waxay tiri maalmaha kamid ah ayaan soo baxay markaan soo baxay oon soo aaday shaqadeedii maalinlaha ahayd oo maalin kasta aan imaan jiray baa markii aan shaqada soo galay baa waxaa indhahaygu ku qabteen gabar dhalinyaro ah oo taagan qarka wadada tareenka qarkiisa saas meesha ma aragtay oo soo istaagay tareenka waa taqaanaan stationada waxay leedahay meesha qarka cirifka ugu horeeya ooba laga dhici karo bay gabdho taagneed ay fiirfiirinaysa meelaha ay sii durgeysay marba marka ka dambeeya ay u sii durgeysay gabadha cirifka tareenka meesha uu marayo bay taagneed gabadha liira ah Nina isla markiiba indhaheedu markay gabadha qabteen telefonka waxay wadatay walkie-talkie la yiraahdo oo gacanta oo taqaan dadka shaqaalaha treenada ka shaqeeya kulligood waxay haystaan telefonka walkie-talkie gacanta lagu qaatay haystaan telefonkeyga ayaan isla markiiba gaabiyay bay tiri oo waxaan soo aaday dhinacii gabadha ay taagneyd baan u soo dhaqaaqay anigoo waxay tiri dareenkeygu uu si kala yahay baan soo aaday dhinacii markaan meesha imid oo gabadhuna ku sii siqayso cirifka sii durgayso second ka dambeeya ay sii durgayso baan waxaan ilay tiri hello maalin wanaagsan aniga waxaa la yiraahdaa Nino adiga magacaa xagee u socotay misbaran karnaa waxay tir gabadhii way ignore gareysay hadalkeyga dhag jalaq iyo masiinin shibay iga tiri waxay tiri inaan ka naxeeyo ma rabinay tiri inaan qof u sheegana ma aan rabin markaas waxaan iribay tiri qof dhalinyaraha tahay ma u maleynaa inaad qof xirxiran tahay sheeko yar ma yeelan karnaa aan isbarano markaas waxay tahay haddana isii dhageysatay markaas waxay tiri daqiiq sakin ka dambe eedan ku soo durgaay gabadha Nina aad baa ka sheekeynaysa marka aan ku soo durgay bay tiri waxaan ku tiri anigu waxaan jeclahay YouTube tutorialka baan ka helaa inaan fiirsado adigu maxaa ka heshaa inaad fiirsatid marka intaas YouTube tutorialka fiirsadaa barnaamij waliba oo maxay ay fani ah markaas baan waxay tiri ku soo diray barnaamijkaas ka waran baan bay tiri gabadha Nina aad ka sheekeynaysa markaas waxay tiri wax yar oo waxay ismaysay tiri sanyaala ay xoogaa ay maaragtay saa isoo yar jaleecday gabadhi markaas waxaan tiri ii waran maxaa fiirsataa adigu maxaa ka heshaa markaas waxay tiri anigu meeshaan inaan qof la sheekaysto uma imaanin su'aalahaagana waa igu soo badanayaan maadaad iga gaabsato ka waran markaas tiri maya anigu wax dhib kuma wado yani waxaan rabay in uma aragti aan ku barto qof dhalinyaro maadaama aad tahay oo maxay ahayto aan isku dhownahay ba isla gabadhan isbarta maadaama ay kaligeed meesha taagan tahay isla markii ay gabadha Nina iyo gabadha kale ay sheekada wadaagayeen ba waxaa arkay nin ka tirsan shaqaalaha meesha isla markii wuxuu wacay booliska stationada kuwa maxay u qaabilsan buu u yeeray wuxuu yiri meeshan arrinaa ka jirto gabadhaana la sii sheekaysanayso qof baa waxay rabtaa inay isdisho marka
idinkuna maaragtay bal soo fiiriya orda taga wiil baa isla markiiba gudbiyey informationkii bas markay gabadhii hadalka sii waday bilis kama soo gaarin isla markiiba gabadhaana xoogaa maaragtay usii dibcisiyo oo maaragtay moodkeeda inay bedesho ka shaqaynaysay waxay tiri ii waran magacaa ku weydiin karaa ana magacayga waaban kuu sheegay inaan ahay adiga magacaa magaaladan maad dhinac ka degan tahay meel kale mayaa ka timid marka hadalka bay isii waday markaase waxay ugu hal mar bay jawaab waxay siisay anigu inaan noolaado maba ku talagelinba halka kelmadaa ka soo baxday inaan noolaado maanta sida qof nool inaan dadkan adduunyada jooga inaan la sheekaysto ma rabo bay tiri markas tiri maxaa dhacay gabadh dhallinyaraa tahay maxay ahayd gabadh qurux badan baa tahay waa niina intaas way sii madaalinaysaa inta ciidanka iyo waxa ugu imaanay because cirifka qarka hal tallaabo ay dib uga soo noqotay maadaama ay gabadhan conversationkeeda ay kusii badisay bay soo laabatay markaas waxay tiri anigu maanta waxayba ka bilowda saacadan iyo inta aan meesha taagnaayoo dhan inaan dad adduunye ahay ma ku xisaabtamaynin jawaaban dhintay tiri aniga dareenkayga qof dhintay baaban ahaaba gabadhiyaa dhahaysa maxaa dhacay waa lagula hadli karaa kaale kofi isla cabne kaale sheekaysane maya tiri aniga kofi iyo waxaas iyo go-aankaygu wuxuu yahay maanta inaan adduunyada dhibkeeda ka tago markaas waxay tiri gabadhiniina ahayd ma hadal kusii celisay saaha dhihin qof walba xilli adaguu la kulmaa dadku dhib way soo maraan laakiin haddana waxaa loo baahan yahay sida aad uga xilliga adag aad u wajihi lahayd geesinimo ayaa loo baahan yahay maadaama aad gabar qurux badan oo dhallinyaro oo adduunkan maanta dadka adduunyada u hor leedaha aad tahay waxaa la rabaa inaad face garaysid wixii adagoo dhan halkaas markay sheekadu marayso bay gabadhii waxay bilowday inay u sheekayso gabadhii neena ahayd way tiri aniga adduunyadan waxaan ku haystay aabahay baan waayay cidlaan dareemay noloshiyaa maxay ahayd cirri igu noqotay waa ka sabri waayay yacni noloshii oo dhan baaba nacayba marka xalay ayaan waxaan go'aansaday inaan adduunyadan dhibkeeda ka tago waxaa oranaysa gabadhii isdil rabtay waxay tiri saaha dhihin maxay ahayd dhibkaan dad badan buu ku dhacaa adiga kaligaa ma tihid adduunyada wax adag wax dhib badan iyo wax fudud iyo wax culeysa iyo wax dhibaato ah intaba waxay tiri waa inaad u faysgaraysaa adiga ood ma aragtay aad u soo jeesataa sidii aad xalka aad uga bixi lahayd inaad raadsato ma ogi inaad naftaada isdhaafisid xal ma kuu noqonayso waxaa maxay ahayd kugu yeerayaa dad arrintan maxay ahayd khibrad u leh oo professionaal ah baa lagu ballaminayaa waad la sheekaysanaysaa gabar dhalinyaro baa tahay noloshaada ha ku qamaarin ku baryayaa biliis gacantiisaa ugu taagtay tirkaale hal mar maxay soo raac gacantiisaa ugu soo qabatay gabadhi way soo raacday hadalkeeda markay si fiican u dhageystay bay xoogaa way soo dabacday gabadhi maxay ahayd rabtay inay nolosheeda isdhaafiso sidii bay gacanta uga soo qabatay gabadhay neena ahayd iskati booliska u yimaadeen halkaas ayaa boolis ka kaxeeyay gabadhi oo waxaa loo kaxeeyay meelaha dadka dhibaatooyinka noocaas oo rabaa inay isdilaan la geeyo baa la geeyey waxaa ka sheekeynaysa gabadha neena ahayd marka waxay tiri gabadhi anigu ma sii tixraacin waayo shaqadeeda ma ahayn inuu shaqadeedan iska raacday marka asxaabey haddii aad aragtaan dad noocaas ah oo aynaan garanaynin oo laakiin xaalad adag ku sugan maxaa samayn lahaydeen idinkaa idin soo dhiiba su-aashaas maanta iiga soo jawaaba komanka iiga soo dhaafa haddii aad aragto qof xaaladda gabadhaas ay ku sugnooda kale ah adigoo wiila amba adigoo gabra amba adigoo hooye ah hadda arrintaas la kulanto maxaa samayn lahayd su-aashaas waa calaam su-aalkaas idinka ayaa halhalaale idin tahay maanta marka barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asxaabey maxay ahayd waa idinkaasaa sheekadii gabadhii maxay ahayd qof aan aqoonin ayaan badbaadiyey halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aan idiin sii raaciyo gabadha neena ahayd waxaa shaqo laga siiyey dadka badbaadiya ee tareenada waddanka ingiriiska intaasoo kun oo qof ayaa isdisha sanad walba gabadha neena ahayd
hay-adaha la shaqeeya dadka noocaas ah ayaa shaqo laga siiyey oo halkaas ayay maanta ka shaqaysaa badbaadinta dadka nolosha nacay baa shaqo laga siiyey hay-ad ka mid ah marka asxaabey barnaamijkeeni maanta sheekadeeni gaabneyd oo qof aan aqoon ayaan badbaadiyey halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi